موضوع أما فرينتا أن مانتا جعلها هنا هلكن كسو قد بيوحى أي تهي لبا إري أو أقون يا أقون يهن هدبا إرجع أقون يهن أيان إسلا في ردنا يا أقون يهنا أقون سمحت أقونتو وأجنشها واحد هرو وأجين أما وإن أنت وح براتو الدلال أنت بحسوا أدسكود إذا أنت وح بدن أجاتو أديكو كهلية قاب أكاديميك حاضر يسوع إسكولا أما فصله إلا أدو هير جامعة ده هذا دونتو أما قاب ضمن أدكو هليسو إن أما ضد القفلة شاكيستو أما قاب وأنا أدكو هشو أما أدو أدملك آخرسو أما إسكا أنت تدو داشو أدكو هشو دور قاب gaarahan sida waaweyn laba qaab oo wax lagu barto oo si dadban iyo si toos aqoonyahanku waa marka qofka waxaas barta oo aqoon gaara ama maado gaara barta oo ku takhasus qofka marka maada inta barta مثلا maadadan la yiraahdo laboratory inta si fiican u barta looga dambeeyo budagooni u tuman inta ka dhigta aan cid uga daba dhufan qofkaas oo kale waxa la leeyahay waa aqoonyahan ama waa mutaqassis laakiin ka waran qofka inta maada barta waxyaabo kale ay u dheer yihiin oo fara badan sida suugaan iyo dhaqan iyo diinti iyo waxyaabo fara badan way aragnimo badan khibrad qofka noocaas oo kale waxa la yiraahdaa xeel dheer ama qof ku xeel dheer ilaahay kuma samadiiday waxyaabo badan og si kale hadii loo yiraahdo ereyga carabiga ah ee muthaqif ayuu noqonayaa inka marka Soomaaliya loo tujo muthaqif ay si kale u ekaanaysa laakiin erey bixinta xagga afka ayaan u daynayaa in sheegay dadkii markaas iga xeesha dheer haddaba si aad aqoonyahan u noqoto maxaa ka dhigi kara aqoonyahan dhisan oo wixiisu ay yihiin budagooni u tuman oo aysan ahayn aqoonta uu bartay bawsi ama wax meelo laga soo harfa goosta ee qof aqoon rasmi leh oo bari ka maalin hebel hadii la xasuusto dadka aad ku soo dhacdo ama aad dadka wax u sheegayso ama adigu aad dad wax la baranayso adiga asaaga ah ay ka dareemaan oo si taasina ay u noqoto mid dad bulshadana anfacda adigana ku anfacda nafsad ahaan iyo horumar ahaan intaba si hadaba waxay ila tahay inaan ku soo xooriyo ama ku soo koobo saddex eray markuu qofku kulansado ayaa la dhihi karaa qofkaasi waa aqoonyahan bisil oo dhisan inuu qofkaasi maadada uu bartay ama takhasuska uu leeyahay si fiican u dilo ay u noqoto mid aan laba cali wax iska weydiin oo xagga uu dhigto waa qodob مثلا hadii la yiraahdo hebel waxa uu bartay faculty of education gaar ahaan qaybta biochemistry waa in ay san noqon hebel biochemistry noqday magaciyaalaha ay noqotaa hebel markay dadku ku soo dhacaan naynaas inay u noqoto in ninkaas uu maadadaas aad u yaqaan ama qofkaas ama gabadhaas waa qodob qofku markaas taas waxa loo yaqaanaa qaabka ama cilmiyeysan aqoonaysan academic oo aqoonta lagu helo oo aad u xaadirtay waqti ku soo bixisay fasal u soo fariisatay macallin hor tagtay research ka samaysay kadibna aad sidaas ku soo qalin jabisay qofku inay taasi noqoto budagooni u tuban aan muran gelin waa waa xagasha koobaad xagasha labaad ama qaybta labaad waxay noqonaysaa qofku inuu yaqaan dhaqankiisa iyo afkiisa qofku inuu yaqaan afkiisa hooyo oo dhaqankii caadiga ahayd leh suugaantii mahmahdii murtidii iyo xayaa oo مثلا suugaanta iyo mahmahda iyo murtida iyo maansooyinku ay suugaan isku yihiin suugaantuna ay tahay iidaanka hadalka qofku markuu suugaan adeegsado ama mahmahyo iyo murti iyo sheeko xariiro qosol leh ama murtiyeysan oo hadalkiisa ku laro ama ku dheeho waxay noqotaa hadalka qofkaas inuu noqdo sida malabka oo kale in dadku u muudsado dadka dhageysanaya marnaba aan laga xiisa dhigin sida aawadeed qofku markuu suugaantiisa iyo dhaqankiisa in badan oo kamid ah oo xoogaa wax ka yaqaan asagana qofkaas waxyaabo dheeraad way waxay kabaysaa aqoon-yahanimadiisa ama aqoontiisa iyo ogaalkiisa xagasha saddexaad uguna muhiimsan waa maxay inuu diintiisa wax ka yaqaan مثلا marka tahay qof muslima oo مثلا Soomaaliya hadii aad diintaada wax badan ka aqoon dabcan waxay noqonaysaa qof meel dhami ay maqanta nolosha ruuxiga ah spiritual life ka ahayd ayaa ka maqan sida daraadeed waa laf dhabar si qofka hadaba uu aqoon-yahan buuxa ma dhahayo waayo waa jagada Ilaahay in la buuxsamo oo la dhameystirmo oo waxba aysan ka nusqan kaaga jirin waa jagada Ilaahay kaliya iskala laakiin si aad u noqoto mid wax badan og isla markaasna meesha uu joogo ka muuqdo waa inaad saddex xagalkaas isku darsataa inaad maada barato lagaaga dambeeyo oo aad ku takhasusto oo marka lagu xasuusto maadada dadka ay ku soo dhacdo oo waxa ay sababsi noqon sida hadda ay u badan tahay Soomaalidu isla markaasna inaad diintaada wax badan ka cantuugto oo asaasiyadu diin aad barato oo aad in badan oo kamid ah inta ka bato dhex gasho aad dhex qaado si aad wax badan u ogaato aqri aduna waa ku anfacaysa
iyo in aad dhaqankaada wax badan ka taqaano sida suugaanta iyo wixii la midka oo ah iidaanka hadalka waayo qofku hadduu hadlo maanta dhan oo wax daldalayo ee suugaan uu ka tago that means waxay la mid tahay qof bariis qarax la inta cuno yaabisa isku dalqaynaya asagoo biyo isaga dejin oo wax iidaan ama goosaar ah aan u yeelin sida daraadeed saddex-xagalka qofku uu ka samaysmo si uu u noqdo aqoon-yahan aad dadka uga dhex muuqda waa inuu maadada uu bartay ka adag yahay waxa uu bartay inuu ka adag yahay inuu diintiisa asaasiyaadkeeda wax ka yaqaan in badan iyo inuu dhaqankiisa qayb badan oo ka mid ah ka bado oo cantuugo saddexdaas aan soo sheegnay waxa mira dhal ka dhiga qofka hab dhaqankiisa behaviors qofka hadii uu hab dhaqankiisu uu xun yahay saddexdaas waa wax tari maaya sida daraadeed afartaas la isu geeyay ii sheeg ama leydigaas afargeeska ayay ka samaysantaa si uu u noqdo qofku aqoon-yahan micno leh sida daraadeed aqoon iyo aqoon-yahan ayaan intaas waan uga baxayaa in yar oo dulka xaadina ay ahayd mar raba aan ku sii dheeraado sida daraadeed si aad u noqoto taladaydu waxay tahay sida aqoon-yahan u noqoto wax baro maado inta qaadatid ku talaxda kamira dhali ha lagaaga dambeeyo ha lagugu xasuusto markii aad hawl ku qabanayso ku shaqaynayso ama aad dhigayso iyada as subject maada ahaan hal la yiraahdo hebel ninkaas hal la doono hadii kale waxay ka noqonayaan hal bacaad lagu lisay iyo joog oo meeshaada joog qodobka kale ee talada labaadna waxa weeye diintaada wax badan ka baro cantuug in badan oo kamid ah si fiican u kabo si aad ay u dhisto garaadkaada akhlaaqdaada anshaxaada gobonimadaada iyo dadnimadaada kan ugu dambeeyana waxa uu yahay suugaantaada iyo afkaada hooye in badan oo kamid baro qofka waxa la yiri luqadaha kale way u fudud yihiin markuu afkiisa hooye yaqaan afkaada inta aad ka taqaan ayaad luqadaha kalena ka baran kartaa sida daraadeed marka afkaada aad si fiican u taqaano naxwo ahaan shuruucdiisa iyo xeerarkiisa iyo qaab hadalkiisa iyo qaybihiisa iyo qurxintiisa iyo suugaantiisa iyo wixiisa ayaad waxaad noqonaysaa qof markuu ka adkaado gurigiisa ilaa sadaqada gurigaada ka bilaabataa marka luqada rabta inaad barato mesela waxaad rabtaa inaad noqoto trilingual ama bilingual ama waxaad rabtaa inaad noqoto multilingual person si kale haddaan kugu dhaho linguistic qof luqadyahan afyahan ama afafyahano si marka taas ay kugu fududaato furaha aad ka soo galaysa waa maxay afkaada hooyo inaad si fiican u jilciso aad u barato shuruuc ahaan naxwo ahaan iyo qayb ahaan waxyaaba kale waa iska dheeraa sida qofku inuu aftahan yahay oo kale hiba ilaahay bixiyo qofkuna waa bara karaa inuu hadalkiisa inta si israacraacsan oo cajiiba u qodobaysta si fiican u dhaho sida daraadeed si aad aqoon-yahan micno la u noqoto buuxa ku dhimo oo dhameystiran waa jagada ilaahay ku saqajaamintaas si aad u noqoto aqoon-yahan wax badan ogo dadka ka dhex muuqda diintaada si fiican u baro asaasiyaadkeeda oo ogow oo martiha ka noqon dhaqankaada iyo suugaantaada in badan oo kamid ah ka kabo oo dhex dabaalo dhex qaad maadana baro oo yeelo lagaaga dambeeyo way hadda maado baran ee taraag wax walba wax yaran ka soo taabanaya waxay noqonaysaa la ilaaha illallah wala ilaaha illallah dhaxdad ku dhumaysa sida daraadeed waxaan ku soo gabagabeynaya uga baxaya aqoonta aan u baranno inaan nolosha bulshada wax uga bedelno annagoo naftanada ka soo bilaabayna intaas aan ku soo eebiyay wallahu ta'ala